xiriirka ay dowladda Soomaaliyeed la leedahay dalalka dariska iyo dowladda inteeda kale taas ayaa noo sahashay in haddii ay 60 maalmood intaasi noo qabsoontay 6 bilood waxaan xoojin karnaa ciidamada xoogga dalka 60 maalmood intaasi noo qabsoontay wejiga iyo karaamada waxaan xoojin karnaa ciidamada xoogga dalka ajin doonaa amniga magaalada Muqdisho iyo dalka oo dhan waxaan sii kobcin doonaa dhaqaalaha waxaan abuuri doonaa shaqooyin waxaan dhisi doonaa jidad oo aan bilownay haddaba annagoo kaashanayna ganacsatada iyo gobolka Banaadir inaan bilowno dhisidda jidadka magaalada Muqdisho waxaan dhisi doonaa isbartiibooyin ka waaweyn tan haddii aan maanta isugu nimid haddii ilaa yidhaahdo in maanta aan halkan isugu nimid waxa ay ka turjumaysaa sida uu u hagaagay amniga magaalada Muqdisho waxaan ka shaqayn doonaa sidii aan dib ugu soo celin lahayn warshadaheenna waxaan ka shaqayn doonaa sidii aan ula wareegi lahayn waxbarashada una samayn lahayn waxbarasho tayaysan waxaan ka shaqayn doonaa sidii aan u hagaajin lahayn caafimaadka dadka Soomaaliyeed waxaan ka shaqayn doonaa inaan ilaashino khayraadkeenna gaar ahaan badaheenna haddii ilaa yiraahdo sidaas daraaddeed waxaan shacabka Soomaaliyeed ku ammaanayaa sida ay noo garab istaageen muddadii ay jirtay xukuumaddu waxaan u ballan qaadaynaa inaan diyaar u nahay isla xisaabtan inaan soo hor istaagi doono mar walba si ay noola xisaabtamaan haddii ilaa yidhaahdo waxaan idin xasuusinayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan in dalkani uu yahay dalka keliya oo aan leenahay in dal kale aanan lahayn in dalkani uu yahay ka naga wada dhexeeya inay nagu waajibtaa kulligeen in dalkan aan hagaajisano sidaas daraaddeed waa inaan isu tanaasulnaa waa inaan shakiga ku bedelnaa isjacayl waa inaan waddaninimadeenna xoojinnaa sida uu nagu hogaamiyey madaxweyneheenna madaxweyne Farmaajo ugu dambayntii waxaan idin sheegayaa haddii ay dowladdu hagaagto in macnaheedu ay tahay in qof walba oo Soomaaliyeed ay noloshiisu ama nolosheedu hagaagi doonto waa mahadsantihiin waxaan ku soo dhawaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed Farmaajo بسم الله الرحمن الرحيم Soomaaliya ha noolaato waxaan ku daraynaa Soomaaliya Ilaahay ha nooleeyo Soomaaliya Ilaahay ha nooleeyo mudane ra'iisul wasaare golaha wasiirada nagala soo qayb galay munaasabadda aan ballaaran golaha shacabka raalli ahaada madaxweynaha waa arki karaysaan tartiiba golaha shacabka ee halkan jooga duubyada oday dhaqameedyada iyo salaadiinta culamaa'udiinka bulshaweynta Soomaaliyeed ee reer Banaadir waxaan idinku salaanay iyo Bambayda waxaan idinku salaanay salaanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay baa mahad leh oo maanta suurtageliyey inaan halkan isugu nimaanno annagoo caafimaad qabna iyadoo weliba ay tahay maalin soona oo weliba qorraxda korkeeda taagan tahay ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo waxaan halkan uga mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha riboorkii uuna siiyey oo faahfaahsanaa oo ku dhisnaa ballanqaadyadii aan hore u samaynay ballanqaadyadaas yaan rabaa xoogaa inaan wax ka xasuusiyo marka hore intaan ballanqaadyada bilaabin reer Banaadir mar walba waxaan rabaa inaan idiin sheego sidaad u jeceshihiin dowladnimo iyo inay dowlad ka dhalato oo magaalada Muqdisho ay noqoto magaalo bilicsan oo wanaagsan oo Soomaali u dhaxaysa waxay ka turjumaysaa sida aad mar walba aad noo taageertaan oo aad dowladdu u taageertaan
khaasatan sidaad anigu mar walba ii taageeri jirteen marxaladihii kala duwan aan soo marnay iyo doorashadii la soo maray iyo markii la guulaystay kadib waxaa taas ay ka turjumaysaa inaad tihiin dad hor socda oo doonaya soomaaliya inay hor u socoto horumar ay gaarto ilaahay ajran ka siiyo magaaladan waa soo noqonaysaa siday ahaan jirta ku soo noqonaysaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo ballanqaadyadii aan ummadda ka ballanqaadnay waxay ahayd inaan ku shaqayno rabitaanka shacabka oo aan ognahay waxay tahay kow inay tahay dowladdu inay wada shaqayso dowlad iskhilaafta dooni maysaan annaguna waxbaan ka baranay dowladihii la soo dhaafay wixii qaban kareen waa qabteen waa u duceennay heer yay soo gaarsiiyeen waxaan ka baranay waxay tahay in dowladdu ay ku macno fiican tahay ay ku khayr badan tahay inay wada shaqayso wada shaqayntuna ay ka bilaabato madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha madaxweynaha ama xukuumadda iyo baarlamaanka iyo shacabka ay matalayaan oo idinka ah dowladda iyo caalamka intaasoo wada shaqayna annaga waa naga go'an tahay waana naga go'an tahay inaan hor u marino wada shaqayntaas bacdamaan ognahay wada shaqayn la'aanta iyo khilaafka soomaaliya meeshay soo gaarsiisay waxaan ballan qaaday oo bishinkayga ah ama aragtideeda foga ummadda soomaaliyeed inaan rajada ku soo celinno rajada ummadda soomaaliyeed ee doonayso waa nabad iyo nolol nabad iyo nolol weeye nabad iyo nolol haddaysan jirin ummad ma jirayso waxaana bays u ah nabad iyo nolol koob waa idiin sheegay danta nolol weeye guuro oo loo guuro dan guudaysan jirin ummad ma jirin danta guud waxay tahay oo aniga iga bilaabatay oo idinku aad igu taageerteen inaan idin keeno saan idiin balan qaaday ra-iisul wasaare iga wanaagsan ra-iisul wasaarahana ballantii waa fuliyey oo wuxuu keenay wasiiro ka wanaagsan wasiirada waxaa looga fadhiyaa bacdamaa 60 beri ay joogaan inay keenaan shaqaale ka wanaagsan ballantaas midii fuliyey ballantaas kuwa ku xigana aan idiin sheego waan idiin fulinay ammaanada kow waxay ka ahayd wixii aan ballan qaaday ammaanada ummadda soomaaliyeed waa kala shagtay waana kala fogaaday waxaan isku diray qabiil iyo qabyaalad iyo xagjirnimo ammaanadu waxay tahay wixii aad noo dhiibateen inaan siday tahay idinkugu hayno oo aan isku kiin hayno oo wada jir iyo midnimada kugu shaqayno wixii aad noo dhiibateenna si fiican idinkugu maamulno oo aan la dagaalno musuqmaasuqa aysan jirin shaksi keligiis gaar u naaxa oo aad kulli nolol wada heshaan oo nimcada ilaahayna siiyey khayraadka dalkaan leeyahay uu idinsoo wada gaaro macquul ah mana aqbalayno waddankan barwaaqada ku jirta in wiil soomaaliyeed gabadh soomaaliyeed ee gaajo ku seexdaan mana doonayno waana ka dagaalaynaa riboorku idin siiya ra-iisul wasaaraha riboorku idin siiya ra-iisul wasaaraha waa bilaaw waxaa idinkaga fadhiyaa idinka dulqaadkii aad idinka rabaa iyo wada shaqayn inaad sii xoojisaan inta hadda aad maqasheen oo 60 cashaa waxaan idinka ballan qaadayna 4 sano ka bacdi inaan noqono dowladaha ka magacaaban afrika hadduu ilaahay yidhaahdo mi maqlaysaan soomaali ilaah nooleeyo
maqasheen inaan la dagaalanay musuq maasuq waa maqasheen waa bilow madba waa hawsheeda dalkan waxa meesha istaajiyaan arkaysaan waa musuq maasuq markaa arkaysaan argagixiso ama xagjir waxaa naaxiyey waa musuq maasuq markii loo diiday askarta korontiga ku jirta oo kaneecada ku laynaysa mushaharkooda waa musuq maasuq markay idinka mushaharadiina lidiin diiday ama shaqaalaha dowladda rayidka loo diiday mushaaharadooda waa musuq maasuq lacagta way jirtaaye qof jeebkiisa ee aadi waana joojinaynaa ammaanada aad noo dhibateen waxaa la socda amniga wax kaligeen annagu aan samayn karna ma aha waa wax noo wada yaalla shaqa noo wada taalla wey amnigaasi wuxuu ku xihan yahay idinka ciidamadan haysana tiradooda waa taqaanaan guri walba iyo geed walba ma istaagi karaan idinkaa la rabaa inaad u sheegtaan xoogta meesha cadow ku jiro meesha qofka qaran dumisa uu ku jiro idinkaa la rabaa inaad usoo sheegtaan amniga markaasa laga rabaa inay agtigareeyaan oo ay qabtaan waxaan uga mahad celinayaa shaqay magaalada xafadda waaberi miinadii ninkii ku aataayey oo qof shaksi ah oo reer waaberi u soo sheegay haddii arrintaas ay badato qof walba uu magaaladan degan oo reer banaadir oo xillis ka saaro oo uu sheego kuwa guryaha ugu jira oo sharwadayaasha ah waxaan nii sheegaynaa 6 bilood magaaladan dabad inay noqonayso insha allah waxaa kaloo nii sheegaynaa annagu waxaan u taagannahay badan u qaadnay oo aan daar u marnay xasiloonida magaaladan yaan daar u marnay xasiloonida macnaheedu waxay tahay magaaladan bilicdeedii iyo quruxdeedii iyo sharafkeedii inay soo noqoto inay la tartanto kenya nairobi inay la tartanto addis ababa inay la tartanto caasimadaha adduunka ma kuwala tartami karno iyadoo boroono magaalada dhexdiisa ay marayaan oo qoryo culsay saaran yihiin oo shacabka lagu leynaayo kulama tartami karno qofkii askariya oo qof shacaba wax u geysta ogaaw waxaad ogaataan tiirkaa kuu dambeeya maxkamad baa lagu saari waxaa kuu dambeeya haddaad qof disho waxaa kuu dambaysa tiirka inaad istaagayso ciidamada qalabka sida waxaad ciidamo qalab sida u tihiin shacabkiina inaad ilaalisaan inaad ixtiraamtaan inaad la shaqaysaan iyagaad wax ku tihiin haddaad laysaan oo aad xurmad daraysaan yaan dowladdu u nahay annagu yaad idinku ciidan u tihiin shacabka kiisa liita ha la qaado kiisa tabardaran oo laga xaqdaran yahay xaqiisa ha la siiyo kan tuuga ah oo khaayinka ah oo qarandumiska ahna qabta xooggiina kaas ku bixiya shacabka ku bixinina xasiloonida waa taas marka in qof walba uu sharci uga hoggaansanaado ma aha qofkii qori haysta inuu ka awood badan yahay shacabka iyo dowladda ma aha waxa weeye qofka qoriga haysta oo ciidanka ah wuxuu qoriga u haystaa difaaca dalkiisa iyo ummaddiisa intaasaan idinkaga fadhiyaa waa ogahay hawl fiican baad qabataan maalin walba waa u heeran tihiin difaaca dalkiinna laakiin khaldaadka dhacaya iyo kiina xun oo ku soo jeesanaya maatida ama dhibaateynaya hala qabto maxaa yeele magaca dowladda iyo magaca ciidanku wax u dhimaya hala qabto ammaanka la dagaalanka argagixisada waa naga go'anta laakiin waxaa nooga horreeya inaan leenahay walaalaheenaad tihiin carruurteennaad tihiin ilaahay idinsoo adeeyo noo imaada annagaan siinayna waxaad u baahan tihiin dowlad fiican waa haysataan dowlad aamina waa haysataan dowlad caalamka la xisaabtanta waa haysataan ciidankan amisom nala jooga walaalaheenna oona difaacaya haddaad dhibka joojisaan guryahoodan u diraynaa joojiya dhibka ummaddiina hallaynina hantidiina ha burburinina noo imaada kuwa ajnabiga ah oo halkan u yimid inay ummadda soomaaliya u diidaan dowladnimo oo u diidaan horumar oo caalamka naga xidhaan oo naga dhigaan soomaaliya inay tahay bahalgaleen oo ay ka dhigaan muqdisho meel aan la imaan karin waa iska kini ceelinaynaa ogaada dalkana waa idinka saaraynaa annagaa iskale dadka annagaa iska leh dadkuna annagayna doorteen waxaan ku shaqaynaa horeyna waa idinkaga sheegnay waa idinkugu sheegnay
waxaan ku shaqaynaa oo ballanteennay ahayd danta dalka iyo dadka iyo diinta ciidanka qalabka sidaad ahaan jirteen waad ogtihiin sidiina laydinkaga yaqaanay afrika waa ogtihiin maantana xaaladdan ku jirna waa ogtihiin inaan wax ka bedelno xaaladda waa ku khasbanna inaad xaaladda wax ka bedeshaan waa ku khasbantihiin oo aad qaadataan doorkii aad lahaan jirteen xaalad iyo duruufo agaad ku jirtaan annaga waa idin garab taagannahay mushaaradiina waa idinkugu soo dadaalaynaa idinkuna dalkiina u dhinta qabyaaladana ka fogaada qabyaaladda waa tan soomaaliya qarnimadeeda burburisay ka fogaada qabyaaladda waad arkaysaan qabyaaladda meeshayna dhigtay in ciidamo shisheeye nagu kala dhex jiraan in 400-300 oo maxaan ku idhaahdaa ciidamo xagjirnaa oo dibadaha ka yimid inay soomaaliya u diidayaan nabadda waa aragtaan meeshaas waxaana gaarsiiyey qabyaalad ninka hadduu dareeska xirto calankana garabka ku xirto waa nin qalana qabiil ma aha maalinta qabiil aad hunguriyayso ogow waad ka baxday ciidanka waana ku maxkamadaynaa waxaad u dhaaratay qaranka soomaaliyeed inaad difaacdo intaasaan kaa filaynaa waxaa noogu soo xigta cadaaladda oo aan ballan idinkaga qaaday ammaano iyo amni waa hawl iswata oo hadda aan wadno cadaaladda soo fiirsada soo ogaada 3 bilood soo socota waxaan ka qabanna cadaaladda cadaalad waa dhammaatay ummaddan soomaaliyeed oo dhibaataysan in xaqooda heli waayaan wax fiican maaha ragga odayaasha ah oo xaakimiinta ah waxaan idiin sheegaynaa haddii awal ay jireen inaad guryo xukuntaan 5 jeer ood isku rogtaan waktigeeda waa dhammaaday in hooyo ooyaysa ama qof xaqiisu ooyaaya aad dhibaataysaan waktigeeda waa dhammaaday cadaalad baa laydinka raba haddaad cadaalad keeni weydaan annagana ma madheshaan shacabka ma madheshaan dowladda ma madheshaan waxaad ku dambaynaysaana xabsi mar damba dhici mayso oo anaa ballan qaaday oo dowladdaana ballan qaaday qof soomaaliyeed intuu hortago maxkamad cadaalad darro lagu sameeyo hawshaasi waa waxyaabaha dalkan meesha uu taagan yahay gaarsiiyey oo ilaahay noogu carooday oo aan adduunka uga hooseenno 2 qof iyo 3 qof oo xun ka yeeli mayno inay magacayna isticmaalaan ummadda soomaaliyeed ay duleeyaan ay dhibaato u geystaan oo ay xaqdarro ku sameeyaan u adkaysan mayno waa idinla xisaabtamaynaa haddaad hawl fiican qabatidna oo cadaaladna annagana waa idinku abaalmarinaynaa aakhirada ilaahay waa idinku abaalmarinaya jannaad ku gelaysaan haddaad dhibaato samaysaanna annagaa idinku ciqaabina aakhirada waa ku dambaysaa arrinta horumarka qaada oo ku xiran cadaaladda markii aan ammaanada idin qaadno oo amni keenno oo cadaalad idin keenno dhaqaalahu waa horumari ummadda soomaaliyeed waxay u jehaysanaysaa barwaaqo iyo horumar iyo nolol waa igu ballan dhallinyarada soomaaliyeed oo 70% ah oo shaqo la'aanta hayso 4 sano hadduu ilaah yidhaahdo inaan ka shaqeeyo inay shaqo helaan maxaa yeelay waxaan ogahay qaacidada ama formula marka laga shaqeeyo amniga laga shaqeeyo ammaanada cadaaladda laga shaqeeyo qof walba waa noolaanaya xitaa annagaa bixinaya welfare wax la yidhaahdo macaawin annagaa bixinayna maxaa yeelay wixii jeeb shaqsi aadi jiray annagaa u hayna qofka curyaanka ah qofka maskiinka ah gabadha agoonta haysata ilmaha agoonta ah kulli annagaa dowlad u ah ilaahayna anagu nagula xisaabtamaya dhaqaaluhu waa horumaraya haddii dadweynow shacab weynow aad nagala shaqaysaan dowladda aad kala shaqaysaan cadaaladda aad nagala shaqaysaan amniga nagala shaqaysaan maxaa yeelay markii magaaladan amni ay noqoto waxaa noo imaanaya maalgelin yaa imaanaysa maxaa yeelay dalkani waa dal khayraad badan dhaqaaluhuna wuxuu ku istaagaa 3 arrimood ayuu ku istaagaa dalku waa inuu khayraad leeyahay dabiiciya waa leenahay dalkani waa buuxaa 2 waa in dalku maamul iyo shaqaalo fiican oo hufan oo xirfad yaqaanaa uu leeyahay marka 3aadna
dhaqaaluhu waa imaanaya oo labadaas dhaqaalaha ku xiga oo capital la yidhahdaa way naga go'an tahay annagu inaan la tartanno caalamka waa naga go'anta shacabyo waxaan rabnaa inaa idinku la tartantaan shucuubta caalamka inaad la tartantaan annagu waa nagu ballan waxaan la tartamaynaa dowladaha afrika ma ah dowladaha yurub markay noqoto transparency markay noqoto ammaano markay noqoto idinkuna waxaan rabnaa la shaqaynta iyo canshuur bixinta iyo maxaan ku rahdaa amni ilaalinta inaad nagala shaqaysaan si aan annagoo aan ula tartantanno caalamka intiisa kale intaas waxaan kusoo gabagabeynayaa ummadda soomaaliyeed hadday isku duuban tahay ugu dambeyn midnimada soomaaliya waa muqadas ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan haddaysan u midoobin dalahooda haddaysan dalkooda u midoobin haddaysan diintooda u midoobin caalamku way ka harayaan caalamka waxaan kula tartamaynaa annagoo mid ah annagoo wada jira yaa caalamka kula tartamaynaa caalamku wayna fiirinayaan sidaan u wada shaqayno shacabka iyo dowlad see wada shaqeeyaan haddii ay arkaan inaan nala dhex geli karin waa noo soo istaagayaan wax alla wixii aan ka rabnana waa nagala shaqaynayaan annagoo siman annagu cidna u daba istaagi mayno u daba istaagi mayno annagoo wax qabsan karna cidna u daba istaagi mayno innagoo isku tashan karna annagu waa inaan isku tashanno taasna waxay ku imaanaysaa dowlad fiican iyo dad fiican oo wada shaqayn leh yaa ku imaanaysaa caalamku waxay u sheegayaan ganacsatadooda marka inay soomaaliya maalgashadaan maalinta soomaaliya maalgashi u bilowdo oo dowlad nadiifa ay joogto iyo shacab nidaamsan waxaan idiin sheegaynaa soomaaliya muddo 4 sana inay ka horumarayso dowladaha afrika goolkeennu iyo vishinkeennu waxa weeye 4 sano ka bacay inaan ka horumarno afrika hadda yarsanina waa ka horumari karnaa waxay ku xiran tahay rabitaankeenna annagu ma rabnaa horta inaan dad soomaaliyeed oo wax walba wadaag inaan nahay ma rabnaa inaan noqonno dad ilaahay ugu xamdi dhaqa inaan leenahay dal fiican inaan nahay hal dal inaan nahay hal diin ilaahay muu xamdi dhaqi karnaa ilaahay muu noqon karnaa haddaan intaas gaarno oo aan iscafinno soomaaliya waa istaagaysaa soomaaliya ha noolaato soomaaliya ilaahay ha nooleeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu